Sida dadkii Giriigga Roomaanka hore u aaminsanaayeen in la Gabowdo si fiican himilada dadkii hore. Sida maanta oo kale, Giriiggii iyo Roomaankii hore waxay rabaan cimri dheer iyo caafimaad. Waxay maqleen sheekooyin quruumo cimri dheer leh, laakiin waxay diiradda saareen waxa qofka caadiga ahi samayn karo si uu u noolaado si caafimaad leh. Waxyaabaha dhakhaatiirta hore ku talagaleen telepus macallin ku dhowaaday hal eber sano cunto fudud oo nidaamsan, quraar, cunto bur ah oo biyo lagu kariyey malab qado, kudaar kalluun ama shimbir casho, rooti lagu qooyey khamri khafiif ah, nadaafad jidh, duugi saliid saytuun maalin kasta, qubays yar, 2-4 jeer bishii, antiochus, dhakhtar cimri dheer cunto fudud, subax, rooti la dubay malab qado, kalluun badeed, casho, cunto bur ah, qal malab ama shimbir. Dhaqdhaqaaq maalinle ah, socod subax kasta jimicsiyo fudud oo ku habboon dada, mararka qaar gaari lagu wado ama kursi lagu qaado. Waxyaabaha ay wadaagaan dadka cimri dheer cunto fudud oo dabiiri ah, badardan, malab, kalluun, hilib duurjoog, cunista oo aan badnayn, dhowr jeer maalintii oo keliya, dhaqdhaqaaq joogto ah, socod, jimicsi fudud, daryeel jidh, duugis, nadaafad, nasasho, nidaam nololeed deggan. Fariinta Lu'iyaan wuxuu sheegay in qof kasta meel kasta oo uu ku nool yahay uu cimri dheer heli karo haddii uu raaco jimicsi ku habboon jidhka, cunto caafimaad leh oo nidaamsan. Waxa uu ku booriyey dadka inay ku daydaan kuwa cimri dheer oo caafimaad qaba. Gunaanad, Giriiggii iyo Roomaankii hore waxay aaminsanaayeen in cunto fudud, dhaqdhaqaaq maalinle ah iyo daryeel jidh ay yihiin furaha gabow caafimaad leh. Telepus iyo Antiochus waxay tusaale u ahaayeen sida nolol deggan oo nidaamsan ay u horseedi karto cimri dheer.